والله فنكينا كسي جرا horta ma rabo waxaan ilaahay mar walba ka baryaa inuu ilaahay fankayga soo madoobeeyo kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal barnaamijka waxaad ku daawan doontaan fanaanada Nadiira Nayruus oo sheegtay in ay fanka ka fariisanayso allahna ka barisay in uu ka madoobeeyo fanka inta aanan barnaamijka u guda gelin aan inay xasuusiyo halka aad inaga daawanaysaan waa Zobe Media Group haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub subscribe saaro haddii aad asxaabtii hore noola joogtay ka mid tahayna waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga daawashadaada iyo la socoshada barnaamijyadeena sanadihii u dambeeyay dhalinyaradu fanka waxa ay ugu hoobanayeen sidii daadkii oo kale laakiin waxaa jira dad fanka ku jiray ama fanaaniin waaweyn ee la yaqaanay ee caan ahaa ee in muddo ah fanka ku soo jiray laakiin go'aansaday in ay guud ahaan isaga baxaan inkastoo inta ku soo biiraysa oo maalin walba heeso cusub soo saaraya iyo inta ka baxaysa aysan isla ekeen oo inta ku soo biiraysa ay aad u fara badan tahay oo ay fara ku tiris yihiin inta ka baxaysa haddana waxaa jira fanaaniin aan marnaba laga filayn in ay godka ama hadaanta ay ku dhaceen oo ah halaaga fanka in ay ka bixi doonaan laakiin si filan waa ah uga baxay haddaba aan gudagalno waraysiga Nadiira Nayruus ee ku saabsan ka bixitaankeeda fanka marka fanka soo galay maxaa ku dhiirigeliyay fanka markaan soo galay waxa igu dhiirigeliyay baan ku dhihi karaa jacaylan jeclaa ama dhalinyaranimo markaas aan hobigayga ahaa iyo fan oo aan ka soo jeedo familigayga kulli fanaaniin ahaayeen abwaaniin ahaayeen hobigii iyo waxaas ku galay ka soo jeedidaan fanka ka soo jeeday waxba lagu xasuustaa hadalka ay sheegayso Nadiira Nayruus ee ah in ay fanka ka soo jeedo oo ay qoys faneedba ka dhalatay ayaa waxa ay u soo dhacday gabar maalin dhow BBC-da laga wareysanayay oo fanaanad caan ah oo wariyihii wareysanayay weydiiyay fanka ma ka fariisanaysaa maadaama saygaadii dhintay inta uusan dhiman fanka uu ka fariistay adiga ma ku tala jirta inaad fanka ka fariisato ayuu yiri laakiin jawaab aan la yaabay ayay bixisay oo ahayd waxay tiri fanka inaan ka fariisto waa rabaa oo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu iga madoobeeyo ayay tiri laakiin waxay gadaal ka raacsiisay waxaan rabaa inaan dhowr sano ku sii jiro oo waxa ay tiri sanadahaas aan ku sii jiro in uu iga madoobaado fanku ma rabo laakiin markii dhowr sano kadib ayaan rabaa inaan maaragtay oo ilaahay iga madoobeeyo oo caruurta ayaan uga xamaalanayaa maaragtay caruur fara badan ayaa ii joogta ayay tiri hadalkaas oo ahaa hadal aan aad iyo aad ula yaabay sababtoo ah waxay garwaaqsan tahay oo ay og tahay in uu fanku halaag yahay oo uusan wanaagsaneyn alla xaqiisana uusan ka wanaagsaneyn laakiin waxay gadaal ka raacsiisay sanado kadib ayaan ka baxayaa waxaas la yaab ah qofku inta uu noolaanayo ma oga oo ilaahay ayaaba ka qariyaba xikmad ayaa ku jirta inaad 5 daqiiqo kadib dhimanayso ilbiriqsiga kadib inaad dhimanayso inaad adoo xumaan ku dhex jira dhimanaysid intaasba kama warqabtid laakiin dadaal ayaa laga rabaa gabadhani waxay leedahay sanado kadib ayaan rabaa inaan ka baxo oo u toobadkeena ilaahay inta ka horeysana aan caruurta ugu sii shaqeysto fanka taasoo fajaciye ama kaag ugu dhalisay haddaba Nadiira Nayruus iyo waraysigeedii aan sii wadano Nadiira dadna waxa ka ciyaar duwan tahay fanaaniin badan marka aad heesaha ku ciyaarayso sidii ay saameyn ugu yeeshaan ciyaartaas heesaha والله هو ميدان قروي واحد دتك ساس يقصي في رسالة فنانت وانا إسقابيا وانا عياران واحد دونان بيسميان لكن واحد يقصوا عام بنقروي waxa aan salayaabay waxa ay sheegayso dhanba dhalanteed miya sababtoo ah waxa ay waraysiga qaybta dambe oo aan wada daawan doono ku leedahay fanka inaan ka fariisto ayaan rabaa oo ilaahay iga madoobeeyo laakiin hadda waxa ay leedahay sababta dadku igu mashquulaan oo ay qaawanaanteeda iyo maaragtay waxyaabaha aan sameeyay ugu mashquulayaan maxay tahay ayay taagan tahay oo taas ay isweydiinaysaa taasoo ah dadku inay ka hadlayaan oo ay leeyihiin waxaan wax wanaagsan maahan oo ay sameynayso taasoo maaragtay ayadana wacyigelin u ah ma la oran karaa Nadiira markay guursan rabtay fankay ka fadhiisanaysa dabcan waa la dhihi karaa okay waxaan se isweydiiyay oo aan la yaabanahay hadda Nadiira waxa ay tiri marka aan guursanayo ayaan fanka ka fariisanayaa micnaha fanku ma meel loo soo raasado guura oo ma waxa la waayay
meelo kale oo ka wanaagsan oo qofkii uu guursan lahaa uu ka raadsado. dabcan waa ay jiraan fanaaniin fara badan oo fanka ku jiray oo markii ay guursadeen guud ahaan fankaba isaga baxay ama isaga hayaamayba oo aanba lagu arkin mar dambe. muddo intee leeg baad rabtaa Nadiira inaad fanka ku jirto ilaa muddo intee leeg 10 sano 11 sano والله فنك إنه كسي شرا هرت مرة وحن إلهي مرة والبكبرياء إنه إلهي فنك يقسم مذوبيه وأنا رجينا إنه إلهي دعاء ذا سيقبله إن شاء الله. إلهي كم مذوبيه إلهي الدعاء ذا هو أقبله إن شاء الله. صاحب يال هلك برنامج كان كده هونيسين وزوب ميديا جروب هدي أكشن الله هو عصب تاعي سبسكرايب صاروا جنب للكاهل ما من سياد ضاوته وننقطة ضاوضة وجورية حاجة أنبهين.